munaasabadani quruxda badan ayaa ahayd mid lagu soo bandhigayay caawi suugaaneed loogu magac daray arrimaha bulshada iyo aragtida abwaanka oo ay soo diyaariyeen akaadamiyadda akhriska qoraalka iyo suugaanta ee Gorof oo la kaashanaysa xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda deegaanka Soomaalida. caawi suugaaneedkani ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaano, halabuuro iyo qoraayaal. ugu horeyn waxaa madashaasi furay hadallo dardaaranana ka soo jeediyey agaasinka waaxda horumarinta luqadda iyo suugaanta ee xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda deegaanka Soomaalida, Abwaan Bedel Cabdullaahi, isagoona dhalinyarada halabuurka leh ku booriyey inay soo bandhigaan hibada halabuurka ee alla siiyey maadaama ay suugaantu door weyn ku leedahay jihaynta bulshada. dadkeena Soomaalidu waxaynu nahay ama ay tahay Soomaalidu dad suugaan dhaari ah. suugaan dhaari weeyaan. af Soomaaliguna waa hodan, wuxuu hodan ku yahay murtida iyo mahmahayada iyo xigmadda. mar hadduu afku sidaa yahay dee dadkii iska lahaa unbaa kolley murtidan ilaahay solansiiyey u samaystay. marka sidaas darteed buu dadka Soomaalidu uu ku yahay suugaan dhaari. waxaan dareemayaa dadka suugaan dhaariga ah ee halkan fadhiya dhalinyarada inayna ahayn Tawakal iyo Cabdiraxmaan oo kaliya ee ay tiro badan yihiin. waqtiyo kalena intay soo bandhigaan laga faa'iideysan doono iyagoo isugu jira dhadig iyo laba. waan dareemayaa gabdhaha fadhiya inay qaar badan oo suugaan dhaari ku jiraan. dhammaantiin waan idinku hambalyeynaa ka xafiis ahaan iyo ka ummad ahaanba waxaynu diyaar u nahay cid kasta oo suugaanyahana ama murti iyo xigmad soo kordhinaysaba inaan isla garab taagno hiil iyo hooba wixii karaankeenna. intaasi kadib waxaa madashaasi suugaan aad u qurux badan ku soo bandhigay halabuurada kala ah Cabdiraxmaan Kaalmeeye iyo Tawakal Cabdi, waxayna soo bandhigeen suugaan kala duwan oo ka hadlaysa arrimaha bulshada. inkastoo dabuubaanse iyo heelo lagu daalay oo dalaba lagu sheegay iyo xaajada casowday, balse aanay dakharada bulshada weli daweynaynin oo ficilku door yahay haddii sama la doonayo ninba se doorka uu kaga jiriyo dagal halkuu joogo daacadnimo hadduu muujiyo oo damqada jiirku waddankeenu daryeel uu rabo doorabaa jire si aan kaalintaydii u dumin waanadiyo doodu waa gabay digniin iyo wax sheeg aan ku daabacaye damiir nool qofkiiliyo waddani wuu dareen garane aan dareersha suugaantu waa deeq rabiyo guule. waxse jira dariiq lagaga baxo maalmihii darane damba suma dhowaadaa la yidhi ruux dab soo maraye haddii dirirro kugu foolle iyo aadda kana hayso darmad iyo furaash laguma lado daayin abidkaaye nin sedaa la seexiyo hanyare waa la dilayaaye in dabayshu say tahay xilliba lagu darsaaroon. abwaan wuxuu ku roon yahay inuu samaaloosaye mar haddii afxumo loo irkado waa ibtilo baase anse arami inaan faafiya abadan weeyaane aan akhriyo ammaan uu qalbiga oolin kari waaye sida kayn ugbaad loo xareed laga amuumayo oo carafta naacawda roob udug saaqayo ama ila xareeb iyo waray maaxi ulanayso ama unuga hoobaanta oo dhaafay aminkiisa oon gacanta lala aadinoo hoosta wada aaday ama ila xareed iyo waray maaxi ulanayso oo oobad dhallaan iyo barbaardhax istareexayo oo maalkii oo dhalay barhkood ka ag madiixayo ulashada sidoodaad qalbiga ula ekaataaye oo xataa arwaaxiga mid iyo oofta bidixeede allow yaa intaan kaa aqaan erey kusoo kooba. ugu dambeyntii halabuuradani dhalinyarada ah ayaa xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda deegaanka Soomaalida ka helay aqoonsiga darajada abwaannimo.